salaantiyo iyo soo hogaamiyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka qaranka dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Abshirow yaa wayba geeg salaan booqasho ka koynay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen maduna koynay ku dib warbixinadii iyo si uu wada shaqeeyeen iyo kulamadan iyo markii warbixin ku siinay ku dib madaxweynaha wayno la dardaaramay inii oo may leeyahay la shaqeey dowladda iyo shacabshe iyadoo may leeyahay una inay sheegay inuu injiinka motorka may leeyahay shaqaalaha motorka dowladda teknika oo shaqaalaha rayidka oo ahayn may leeyahay dowladnimada inay dareeran marka wayno la dardaaramay inuu shaqaalaha inay may leeyahay dowladda Soomaaliya shaqalaan baaxad weyn jarta oo may leeyahay ودي شغالة ريد كمان لراي شروع ودجيان وما لراي لو شقي لما ما لراي سلم حلا وما لراي شغال في الدولة كفلان ويبشر إني أنا employment أو زايد أجرت دولة جودهان دولة الصومالية القوة الشقية شغالها ما لراي دتي والحبر ذنا لون كفائدة حبوغنا مدحوينها كونفور قبل kaasoo inshaagada booqani kadib kulamadii uu ninka furmeen guddiga shaqaalaha dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dowladda kaasoo madaxweynaha uu ku warbiinay marxaladoodii oo kulamadii guddiyadu hamareen sidoo kalena guddiyada madaxweynaha way guddiyadu ku codsadeena inuu garab istaaga guddiga shaqaalaha Koonfur Galbeed iyo guud ahaan shaqaalaha rayidka dalka Soomaaliya sidoo kalena ma aragne ka dhiirigira saaxiibadiis kale ee dowlad goboleedyada maamul madaxweynayaasha ku ah sidii arrinta ma aragne guddiyada shaqaalaha la xoojin lahay madax marnaanida la ilaalin lahay shaqaalaha rayidkana lantay ilaahay xuquuqdooda ka hadlaay marka madaxweynaha safayle ma aragne kulankan ka dhamaaday dardaaran oo wax ku oolay yabi inuu intiibo ma aragne karaasi inuu ku qayb qaado karo inay ma aragne shaqaalaha rayidka xuquuqaad iyo ma aragne siyaasadaha shuruucdeena ma aragne iskaalan ugu ku jeesado doona ya ma aragne ka dardaarami unuuna guud ahaan madaxweynaha ma aragne ku bad calinay sida sharafta leh uu soo diiday qaabili iyo kaalinta uu soo niman ballan inuu soo yaani qayb qaado way rajeeyeen inay madaxda kale ee dawladda ee qaybaha sharduunga heer gobol iyo heer dawlad goboleed iyo dawladda federaalka ba inay si saas lamid ah marka kaalintii uu ku qaado doonaan uu ma aragnay shaqaale tayo leh xuquuqda dhamaystiranto markaas ay dhiibo kora ama biyo kora ma aragnay adeegga qaadna marka iyada ma hasanti way rajeeyeen inay ma aragnay kulamo kale madaxweynaha